Xaaji Cabdi oo barnaamijkii la tabinaya ayaa inoogu bilaabaya wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha lagu qaaday Israa'iil. Mawlid. Mahadsanid Maxamed. Dagaalka ka socda gobolka Bariga Dhexe oo galay maalintii 34aad ayaa waxaa jirta cabsi weyn oo dagaalkan in uu ballaarto la xiriirta kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump habeennimadii xalay uu markale ku andacooday in Iiraan awoodeedii la jabiyay dagaalkuna uu sii socon karo ilaa iyo 2 ilaa 3 toddobaad. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa daboolka ka qaaday inay fuliyeen mawjadii 9aad ee howlgalka ballanqaadka dhabta ah dufcadiisa afraad. weeraradaasi ayaa la sheegay in loo adeegsaday sawaariikh iyo diyaaradaha droniska waxaana lagu beegsaday saldhigyo ciidan iyo xarumo xasaasi ah oo ku yaal Israa'iil iyo kuwa Mareykanka ee gobolka. isla markaasna uu jawaab u ahaa gardarrada Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka Iiraan sida lagu yiri bayaan laga sii daayay warbaahinta dawladda Iiraan. bayaanka ayaa lagu sheegay in goobaha sida tooska loo tiigsaday ay isugu jiraan warshadaha birta iyo kuwa aluminiyumka ee Mareykanka ee gobolka. isla markaasna weeraradan ay toos u abaareen yoolalkoodii. dhinaca kalena taliyaha ciidamada Iiraan Amir Hatami ayaa maanta waxa uu sheegay in duulaan kasta oo dhulka ah oo lagu soo qaaday Iiraan uu la kulmi doono jawaab adag isagoo xusay in aysan jiri doonin cid ka mid ah sida uu yiri ciidamada cadawga ah oo badbaadi doona haddii weerar noocaasi ah la fuliyo. hadalkan ayaa yimid iyadoo Hatami oo amar uu siiyay taliyaasha goobaha dagaalka isaga oo ku booriyay in si adag oo taxadar leh ula socdaan dhaqdhaqaaqyada cadawga isla markaasina si joogto ah ula socdaan. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la diyaariyo lana hirgeliyo qorshayaal ku habboon oo lagu wajahayo xaaladaha kala duwan ee weerarka waqti ku habboon si loo xaqiijiyo in hanjabaad kasta oo suurtagal ah la fashiliyo. taliyaha ciidamada Iiraan Amir Hatami waxa kale oo intaasi uu ku daray in ujeedadu ay tahay in laga difaaco dalka halista dagaalka lana xaqiijiyo amni buuxa oo dhammaan muwaadiniintu ay helaan. wuxuu carabka ku adkeeyay inaan la aqbali karin jiritaanka meel ammaan ah iyadoo shacabka Iiraan aysan amni haysan. warbaahinta ayaa baahisay muuqaal muujinaya Hatami oo ku sugan qol ayna la joogaan 3 taliye oo kale isla markaasna kulan aaladda muuqaalka kula leh saraakiil kale oo tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa iyo 10. hadalkan ka soo yeeray taliyaha ciidanka Iiraan ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheeganayo in colaadda Iiraan ay ku dhowdahay dhamaad isla markaasna ay ku soo idlayn doonaan toddobaadii gudahood. waxaa kale oo uu sheegay in Iiraan waa si hadalka u dhigay si xun loogu jabiyay dagaalka. isla wararkan ee afayeenka wasaaradda difaaca Iiraan ayaa waxa uu sheegay in howlgalka difaaca ee ciidamada shacabka iyo iska caabintu uu sii ahaan doono mid guulo gaara isagoo intaasi ku daray in cadowgu uu ku guuldaraystay inuu gaaro ujeedooyinkiisii dagaalka oo ay ka mid yihiin kala qaybinta dalka ridista nidaamka daciifinta ciidamada qalabka sida kicinta fawdo iyo xakamaynta marinbiyoodka Hormuz. afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dilalka lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaasha saraakiisha iyo weerarada lagu qaaday shacabka Iiraan ay koriyeen xoogga iyo sidoo kale go'aanka shacabka ee la dagaalanka cadowga. isla wararka Iiraan warbaahinta maxalliga ayaa tibinaysa in qaraxyo laga maqlay magaalada Tehran iyo magaalada Karaj ee galbeedka dalkaasi dhacda. dhinaca kale ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ee IRGC ayaa sidoo kale waxay shaaciyeen in ay soo rideen diyaarad nooca duuliyaha lahayn gaar ahaan nooca Hermes 900 oo Israa'iil ay leedahay xilli ay dul heehabaysay hawada magaalada Shiraz ee koonfurta dalkaasi Iiraan. dhanka Mareykankana telefishinka NBC News ee Mareykanka laga leeyahay ayaa isaga oo soo xiganaya saraakiil reer galbeed ah qoboro iyo qiimeyn sirdoon oo Mareykanka ah in inkasta oo Trump uu sheeganayo guul military haddana aysan jirin calaamado muujinaya in nidaamka Iiraan uu weeqmay ama uu burburayo isla markaasina ay muuqato in ilaalada kacaanka ay weli si adag u maamulayaan xaaladda xitaa laga yaabo inay ka xoog badan yihiin sidii hore. dhanka Israa'iil
ciidamada militariga ayaa sheegay in ay fuliyeen weerar ballaaran oo lagu qaaday kaabayaasha nidaamka Iiraan oo ay ku jiraan saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dhulka ee ilaalada kacaanka iyo xarumo maamulka ciidamada oo ay isticmaalaan hogaamiyaasha Iiraan. waxaa sidoo kale la sheegay in la beegsaday saldhig military oo ay leeyihiin ciidamada IRGC oo ku yaal magaalada Tehran, isla markaasna ay duqeeyeen goobo lagu kaydiyo gantaalada balastiga oo ku yaal magaalada Tabriz. waxaa la xusay in sidoo kale ciidamadu ay weerareen boqolaal xarumo oo kuwa amar bixinta tan iyo markii uu bilowday dagaalka. macluumaadkan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadayaan iyadoo laga soo warinayo qaraxyo kala duwan magaalooyin ka mid ah waddanka Iiraan. war kale oo arrimahan la xiriirana wakaalada wararka AFP ayaa soo warisay iyada oo soo xiganaysa ergey ka tirsan hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA in wararka ama weerar lagu qaado warshada nukleerka ee Bushehr loo tixgelin doono dembi dagaal. wararka Iiraan haddii aynu dib ugu laabano, laabaha sirdoonka dalkaasi ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen 3 qof oo lala xiriirinayo sirdoonka Israa'iil ee Mossad, kuwaasi oo ku sugnaa gobolka Zamnam, iyo 4 kale oo ka tirsan waxa lagu tilmaamay kooxo argagixisa ah oo ku kala sugan gobolada Golestan, Sistan iyo Balochistan. dhanka kale, warbaahinta Iiraan ayaa xaqiijisay geerida General Maxamed Ali Fatih Al-Zadeh oo ahaa taliyihii cutubka fataaxiin ee ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee IRGC oo lagu dilay duqeyn maalinimadii shalay. haddii aynu eegno iska horimaadyada Xisbullah iyo Israa'iilne, ururka Xisbullah ayaa waxa uu sheegay in dagaalamayaashoodu ay beegsadeen gantaal la hago taangi nooca markaafa ah oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil kaasi oo ku sugnaa bariga xarunta xisbiga ee Qiyam, iyaga oo xaqiijiyay in weerarkaasi si sax ah oo u dhacay. dhinaca kale, ururka Xisbullah waxa uu sheegay inay gantaal ku weerareen dayuurad nooca qomaatiga u kaca oo Israa'iil ay leedahay xilli ay maraysay hawada deegaanka xadka ku yaal ee Raamiya, waxaana lagu qasbay in ay dib u gorato oo ay cararto. sidoo kale, ururka reer Lebanon ayaa sheegay in gantaalada la hago ay ku weerareen ciidan Israa'iili ah oo ku sugnaa guri ku yaal deegaanka Al-Quza, isla markaasna markii labaad ay gantaalo ku weerareen deegaanka Metula ee dhaca xadka waqooyiga Israa'iil. isla wararkan raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad 70 gantaal laga soo riday Lebanon laguna weeraray magaalooyinka waqooyiga Israa'iil tan iyo saqdi dhexe. taasi waxa ay muujinaysaa in xaaladda xadka Lebanon iyo Israa'iil ay ka sii darayso. wararka dhanka diblomaasiyadda haddii aynu jaleecno, madaxtooyada Ruushka ee Kremlinka ayaa ku baaqday wadahadal, isla markaasna halka saamaynta xun ee colaadda Iiraan lagu gaari karo oo keliya wadahadal. waxaana la sheegay in ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dadaalada lagu wajahayo xal nabadeed, iyadoo la tilmaamay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu wado xiriiro uu la leeyahay hogaamiyaasha khaliijka iyo dunida carabta. isla wararkan, wakiilka siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Kaja Kallas ayaa waxa ay sheegtay in intii lagu guda jiray wicitaan ay la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha in dib u soo celinta isu socodka marinka maraakiibta muhiimka ah ee Hormuz ay tahay mudnaan degdeg ah si loo xaqiijiyo xasiloonida ganacsiga caalamiga ah iyo socodka tamarta. war kale oo isla arrimaha diblomaasiyadda ah, wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay in hadalka Trump habeennimadii xalay uu jeediyey kadib ay muhiim tahay in la yareeyo xiisadda, waxaana carabka lagu adkeeyey in xal militari uusan ahayn mid wax lagu xallin karo, isla markaasna looga baahan yahay dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan cawaaqib xumo kale oo saameyn ku yeelan karta dhaqaalaha caalamka iyo amniga tamarta. Shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in sababta asaasiga ee xiisadda marin biyoodka Hormuz ay tahay duulaan militari oo sharci darro ah oo ka dhan ah Iiraan, waxaana ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dejin lahaa xiisaddan loona ilaalin lahaa badqabka marin biyoodka Hormuz. isla wararkan, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa waxa ay sheegtay in si firfircoon ay ula xiriirayso
hoggaanka Mareykanka si loo helo xal lagu soo afjaro dagaalka Iran iyada oo la xusay in aanu weli la xaqiijin imaanshiyaha wafdi Mareykan ah oo wada hadala waa tahay bal haddii aynu eegno intaynu barnaamijka ku jirnay wararkii ugu dambeeyay ee soo dhacay ee colaadan la xiriira dowladda waddanka Austria ayaa lagu soo warramayaa in ay gebi ahaanba u diiday Mareykanka inuu isticmaalo hawadeeda sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP waxaa la sheegay in Austria ay cuskatay qaanuunka Vienna ee la xiriira inaysan qayb ka noqon colaadan imika socota wararka kale waxaa ka mid ah ciidanka IRGC ee Iran ayaa waxay sheegayaan inay gobolka Zanjan ay ku xireen 5 qof oo lagu tuhunsan yahay inay la shaqeynayeen sirdoonada ajnabiga waxaana la sheegay in lagu xiriirinayo ficilada jawaasiisnimada ee ka jira waddankaasi wararka sidoo kale waxaa ka mid ah ururka Xisbullah ayaa haatan wuxuu gantaal ku garaacaya waqooyiga Israa'iil iyadoo lagu soo warramayo seeriga diinta ka bixiya gantaalada in laga maqlayo deegaano ku yaal jaliilta galbeed iyo jaliilta sare sidoo kale aaga Nakhura ayaa la sheegaya in Xisbullah ay duqeynayso goor sii horeysay seeriga diinta ka bixiya gantaalada ayaa laga maqlay gacanka Haifa deegaanka Karyut iyo sidoo kale koonfurta ee Akka waxaana la sheegaya gantaaladaas in laga soo riday dhanka koonfurta Lebanon oo ururka Xisbullah uu soo riday oo ku saabsan dagaalka Israa'iil iyo Mareykanka ee ka dhanka ah Iran warbixintan waxaa soo jeedinaysa wariyahana Nimcad Macade iyadoo la eegayo korarka xiisadaha ka aloolsan marinbiyoodka Hormuz falanqaynta military ee ku saabsan ikhtiyaaraadka uu qaadan karo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii xoogeysanaya waxaana laga hadlayaa dhowr xaaladood oo u dhaxeeya howlgallo degdeg ah oo xadidan ilaa dhaqdhaqaaqyo military oo ballaaran xilli ay sii kordhayaan marxaladaha dhanka dhulka iyo istiraatiijiyadda xaaladan Salaam Qadiro oo ka qayb qaadanaysa falanqayn uu sameeyay telefishinka Al Jazeera ayaa sharaxday in xaaladda koowaad ay tahay howlgal degdeg ah oo ciidamada Mareykanka ay ku degaan magaalada Isfahan iyadoo ujeedadu ay tahay in la soo helo tiro uraniumka la kobciyay ah oo lagu qiyaasay ku dhawaad 450 kilogram balse ikhtiyaarkan wali waa mid aan macquul ahayn sabab la xiriira caqabadaha saadka iyo kakanaanta dhulka taasi oo ka dhigaysa hirgelintiisa mid aad u adag xaaladda labaad waxay la xiriirtaa fulinta howlgal ka dhaca jasiiradaha yaryar ee ku dhow marinbiyoodka Hormuz kuwaasi oo ay ugu muhiimsan yihiin jasiiradaha Laag Qashim iyo sidoo kale Syria kuwaasi oo dhammaantood leh xarumo military iyadoo suurtagal ay tahay in diiradda la saaro gacan ku dhigista jasiirada Qaraj oo ah halbowlaha dhoofinta shidaalka Iran ikhtiyaar uu Trump hore u soo jeediyay sabab la xiriira muhiimadeeda istiraatiijiyadeed oo weyn xaaladda saddexaad waxay la xiriirtaa ballaarinta howlgallada military iyadoo si isku dhafan loo adeegsanayo awoodda badda iyo cirka xilli laga faa'iideysanayo joogitaanka maraakiib dagaal oo ay ku jiraan kuwa gantaalada tuura iyo kuwa badda quusa ama gujiska iyo sidoo kale maraakiibta xambaara diyaaradaha dagaalka taasi oo suurtagelinaysa fulinta howlgal adag inkastoo ay jiraan caqabado deegaan oo ka dhan ah howlgal aad u xasaasi ah Qadiro ayaa xustay in howlgal kasta oo dhulka ah uu u baahan yahay diyaarinta awood military oo weyn qaybna uu ka yahay markabka dagaalka ee USS Boxer oo ay saaran yihiin cutub ka kooban qiyaastii 2500 oo ciidamada badda ee Mareykanka iyagoo ay wehelinayaan 2 markab oo dheeraad ah mid loogu talagalay digitaanka biyaha iyo sidoo kale mid taageero saadka ah iyo sidoo kale waxaan ka marnay markabka USS Treble oo gaaray ama ku sii jeeda gobolka goobta uu ku sugan yahay markabka USS George Bush iyo maraakiibta la socota ee weerarka oo caadiyan ka kooban 12 wali lama hubo taasi oo ku kordhinaysa hubanti la'aan ee ku saabsan awoodda Mareykanka ee fulinta howlgal ballaaran oo waqtigan dhaca majalada Atlantic ayaa iyadoo soo xiganaysa ilo xoogaal ah waxay shaaca ka qaaday in saraakiisha militariga Mareykanka ay ka fiirsanayaan fulinta la weeraro oo dhulka ah oo gudaha Iran ah kuwaasi oo kamid ah ikhtiyaarada ay sii kordhin karta xaaladda dagaal ee miiska u saaran maamulka Mareykanka sida ay sheegeen ilahaasi xaaladda koowaad waxay bartilmaameedsanaysaa jasiirada Qaraj oo kamid ah goobaha ugu muhiimsan ee dhoofinta shidaalka Iran halka xaaladda
ama ikhtiyaarka labaadna uu diiradda saarayo fulinta howlgal lagu soo qaatay uraniumka la kobciyey tallaabo laga yaabo inay leedahay saameyn istaraatiijiyadeed oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Sawirka guusha ee Hormuz. Dhankiisa qabiirka arrimaha militariga General Elias Hana ayaa ka hadlay istaraatiijiyadda suurtagalka ah ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee marinbiyoodka Hormuz, isagoo adkeeyay inuu doonayo inuu abuuro sawir guul oo cad inkastoo ay jiraan dhibaatooyin militari iyo kuwa saadka oo gobolka ah. Hana ayaa sheegay in Mareykanka uu u arki karo in maamulidda saddexda marinbiyood ee waaweyn ee gobolka aysan mar dambe ahayn yool istaraatiiji ah oo toos ah, isagoo sharaxay in Iran ay lumisay qayb weyn oo ka mid ah awoodeeda nukliyeerka iyo mideeda militari, isla markaana hogaanka Mareykanka uu raadinayo qorshe bixitaan oo keena sawir guul ah iyadoo aan loo baahnayn xakameyn buuxda oo marinbiyoodka Hormuz gacanta loogu dhigo sida taariikh ahaan u dhacday ee Suez sanadkii 1956 intii lagu jiray duulaankii saddex geesoodka ah. Waxaana intaasi ku daray in howlgal kasta oo ballaaran oo dhulka ah ama cirka ah uu la kulmi doono caqabado waaweyn, gaar ahaan marka loo eego xakameynta jasiiradda Qaraji jasiiradaha ku xeeran marinbiyoodka Hormuz, halkaasi oo shabakada difaaca Iran ay gaarto dhammaan marinada iyadoo ay jiraan xayiraado saadkii militariga ah oo ku saabsan galitaanka ciidamada Mareykanka. Sidoo kale waxa uu xuseen xiritaanka ama xakameynta marinbiyoodka ay si toos ah u saameyn doonto suuqyada caalamka ee shidaalka, iyadoo lagu qiyaasayo 2.5 milyan oo foosto maalintii laga weyn doono suuqa, taasi oo adkeynaysa go'aan kasta oo militari. General Elias Hana ayaa sharaxay in ikhtiyaarka Mareykanka uu ka mid yahay inuu ka baxo dagaalka isagoo aan furin marinbiyoodka Hormuz, iyadoo la ilaalinayo sawirka guusha iyo muujinta awoodda xakameynta, isagoo tilmaamay in ikhtiyaaradani ay ku qasbayaan Washington inay dheelitirto danaha ay la leedahay xulafadeeda NATO iyo sidoo kale dalalka kale ee gobolka, iyadoo ay jiraan caqabado waaweyn oo ku saabsan dirista ciidamada gaarka ah iyo kuwa howlgalka degdega ah, maadaama cutubyadan muhiimka ah sida cutubka mariniska ee ciidamada badda ee ka imaanaya Hawaii iyo sidoo kale Okinawa ay u baahan yihiin toddobaadyo si ay u gaaraan ee gobolka. Qabiirka militari ayaa sidoo kale ka hadlay saameynta gobolka, isagoo adkeeyay in marinbiyoodka Hormuz uu yahay halbowlaha amniga qaranka ee dalalka Khaliijka, isla markaana tallaabo kasta oo Mareykanku qaado ay bedeli doonto dheelitirka gobolka, gaar ahaan iyadoo Iran ay dalbanayso madaxbannaani buuxda oo ku saabsan marinbiyoodka iyo inay kusoo rogto khidmad lacageed maraakiibta, taasi oo ka hor imaanaysa sharciga caalamiga ah. Waxa uu sheegay in adeegsiga awoodda badda ee Ingiriiska min NATO uu xadidan yahay sababo la xiriira ee dayactirka qaar ka mid ah maraakiibta muhiimka ah, taasi oo Washington hordhigaysa doorashooyin aad u adag. Hana ayaa kusoo gabagabeeyay falanqayntiisa isagoo adkeeyay muhiimadda miisaanka Carabta iyo Khaliijka ee maalinta marinbiyoodka Hormuz, ha ahaato furistiisa si loo dhiso saldhigyo caalami ah ama raadinta wadooyin kale oo lagu dhoofiyo shidaalka iyo gaaska, arrin u baahan waqti, dadaal iyo sidoo kale qarash badan. Nimcati Macade, HBN Online TV. Amaasan tahay Nimco. Mawlid, haddii aynu ku sii soconno khudbaddii xalay uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa ka soo baxay in dagaalku uu sii socon doono. Haddaba maxaa laga yiri arrimahan? Maxamed, horta xalay aad baa loo sugayey oo caalamka oo idil waa loo dhegtaagayay hadalka uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, inkastoo oo ahaa hadal isku miriqsan oo dhanna fan uu ku jiray, dhanna warar badan oo lagu sifaynay inay yihiin kuwa marin habaabina ay ka muuqdeen, looguna talagalay hadalkan dadka Mareykanka gudaha in lagu dejiyo waxba kama bedeli karin masraxa dagaalka oo saacad gudaheed markii uu ku faanay Donald Trump in Iiraaniyiinta awoodoodii la daciifiyey, isla markiiba weerar culus ayay qaadeen oo sawaariikh iyo diyaaradaha droniska loo adeegsanayo. waxaana weliba la sheegay xalay inay ahayd habeen aad u adag marka loo eego dhanka Israa'iiliyiinta, weliba iyadoo lagu jiro munaasabad diimeedka Yuhuudda ee Passoverka loo yaqaan. Iiraaniyiintu waxay wacad ku mareen in aysan ladi doonin dadka Israa'iiliyiinta. Habeen muhiima oo kale way runtii oo sida ciidaha muslimiinta oo kale ah, toddobaad muhiimana bay u tahay Israa'iiliyiinta. Marka waxaad moodaa in fariin ay ahayd loo diriyay Donald Trump oo ahaa waad hadashay laakiin hadalkaagu runna maaha beenna maahan, sida hadalka ay u dhigayaan Iiraaniyiinta. Suuqyada caalamka waxba kama bedelin oo saaki waa berigiiba suuqyada bariga Asia sida suuqa Tokyo ama Singapore oo kale dhammaantoodba waxaa laga dareemaya hoos dhac weyn.
suuqyada Mareykanka goordhow way furmi doonaan ayaga laftigooda ma la saadaalinayo isbeddelna uu ka imaanayo hadaladan Donald Trump 13 mar ayuu wuxuu ka hadlay guul dagaal ee dagaalkii la soo gabagabeynayo 13 kaas marba waxa la sheegaa inay yihiin kuwa lagu tala galay in suuqa lagu xasiliyo laakiin hadalkiisu ma keeno in suuqa xasilo ee suuqa waa sabaynaya gaar ahaan maciishada shidaalka gaar ahaan shidaalka qayriin oo kale oo hadda $106 ayay fuustada imika maraysaa waa la saadaalinaya in suuqa isbedel uu ku imaan doono inuu hadalka markuu jeediyo waxa la islahaa wuxuu ku dhawaaqi doona dagaalka in la joojiyo aad baa loo saadaalinaya laakiin arrintii meesha way ka baxday marka waxaad moodaa dagaalka hadda inuu noqon doono dagaal furan oo sii socon doona toddobaadyo ugu yaraan dad badan waxay leeyihiin dagaalkan uu doonayaa inuu soo gabagabeeyo Donald Trump laakiin ku dhicitaankii buu leeyahay waxa dagaalkan doonaya inuu sii socdo Netanyahu sida ay sheegayaan dad badan oo arrimahan ay ka faalooda marka wax weyn ma uusan bedelin hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump haddana way maqlayeen warbixinta sheegaysa in la aaminsan yahay Iran hadda inay ka sii awood badan tahay xagga ciidanka waxyaalo badan oo muujinayna way jiraan inay awooddeedii ay xoogaysanayso diyaaradaha dagaalka maanta oo la joogo maalintii 34 ma sheegaya diyaarado daroon ah oo daroonka meel kasoo geli karta maalintu waxaan xaloo kale waxaan ku soo qaadanay barnaamijyadeena saldhig Mareykanka ku yaal oo diyaarad daroon ay dul martay ruushka ayaa madaxtooyadiisii hadda ka hor lagu duqeeyay marka diyaaradaha daroonka waa iska caadi laakiin diyaaradihii dagaalka ha noqdeen F-35 F-22 F-18 F-15 F-16 ma geli karaan hawada waddanka Iran taa marka waxay muujinaysaa Iran weli inay awood u leedahay inay difaacdo hawadeeda waxaana aad loo saadaalinayaa inay heshay gantaalo ka saacidaya inay ka hortagto diyaaradahaasi haddii ay dhici lahayd Israa'iil iyo Mareykanka inay waxa ay doonaan ka sameyn karaan hawada waddanka Iran waxa ka socda Beirut oo kale ama wixii aynu ku arki jirnay Gaza oo kale ayaa la arki lahaa laakiin arrinta meesha way ka bedelan tahay xaaladdu waxay muuqan kartaa dagaalka inuu sii xoogaysanayo Maxamed waa gartay markan ma la oran karaa dagaalku waxa uu wareegi doonaa dhanka dholka boqolkiiba 70 ha waa la qiyaasayaa laba qodob ayay u badan tahay hadda warbixinta wayna maqlaynay waxay aad ugu badan tahay Trump inuu yiraahdo waxaan weerari doonaa jasiiradaha Iran dhowr jeer anaga halkan ka sheegnay waxa leeyahay hadaladan uu leeyahay 5 maalmood baan siinayaa Iran iyo ilaa 6 bishaan u qabanaya dhamaantoodba inay tahay inuu waqti ku iibsanayo si diyaar garow loo sameeyo waxayna u badan tahay in weerarka uu dhici doono dhanka dhulka laakiin maxaa imaan doona weeye markaasi Iraniyiintu ma fariisan doonaan weliba ciidanka Mareykanka u soo dhawaadeen waxa la isweydiinaya waxa weeye oo lala yaaban yahay saldhigyadii Mareykanka ee ku yeel gobolka ayaa ciidanka Mareykanka ay ka qaxeen sidee marka u keeni kartaa ciidamo Mareykan jasiiradaha gacanka Bershiya ama gacanka khaliijka ku yaal sidee u keeni kartaa iyadoo Iran ay ognahay inay duqeynayso meel walba ka mid ah gobolka oo xitaa dhowr boqol oo kiiloomitir Israa'iil u jirta arrintu marka waxay maraysaa arrin halis ah suurtagal waxaa kaloo ah in Trump uu amro duulaan dhanka dhulka ah oo ciidamo Mareykan loo diro Isfahan iyo Natanz iyo Fardo dhowr jeerna waan ka hadalnay waxa leeyahay waxa loo socdaa in la soo helo uraniumkii la tagay ama la naaxiyay laakiin uraniumka meel cad ma yaalo ma ahan geed meel suran arrintu marka waxay u muuqataa jahawareer inuu haysto madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Iraniyiintana waxa leeyahay iskabada in xoog lagu furo Mareykanka Hormuz waxa laga hadlayaa 6 bil inuu qaato Mareykaas inuu si caadi ah ku soo laabto saakii barnaamijyadan tubina waxaan ku sheegnay ilaa iyo 400 oo markab inay sugayaan Iraniyiinta inay u fasaxaan inay ka gudbaan Mareykanka Hormuz marka xaaladdu waxay u muuqataa dagaal dhanka dhulka inuu dhici doono la isfar saari doono qasaaro ballaaran Mareykanka uu soo gaari doono